daawada ku soo dhawow xubin kale oo ka mid ah barnaamijkeennii xusuusta abwaanka. barnaamijkan waxaynu ku soo qaadanaa hadba abwaan ama gabyaa Soomaaliyeed oo bulshada magac ku dhex leh ama aad looga yaqaan. maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa abwaanka weyn gabyaaga waa ninka Soomaalida dhexdeeda caanka ka ah ee Raage Ugaas Warfaa. Raage Ugaas Warfaa oo markii dambe noqday Ugaas Raage Ugaas Warfaa waxa uu ahaa ugaas hogaamiye gabyaa hal abuur dagaalyahan Soomaaliyeed kaasi oo noolaa waqti lagu qiyaaso bartamihii qarnigii 19aad. Raage Ugaas waxa uu ku dhashay ceelka Sasabane meel u dhow magaalada Dhagaxbuur gobolka Soomaali Galbeed ee wadanka Itoobiya. Raage waxaa dhalay Ugaas Warfaa Faarax Samatar. waxaa la dhashay laba wiil oo ka weynaa kuwaasi oo kala ahaa Ugaas Xuseen iyo Xilkab. si kasta ha ahaatee Ugaas Raage wuxuu yaraantiisii ku caanbaxay tirinta gabayga iyo helidda erayo aad u dhumuc weyn. Raage Ugaas waxa uu ahaa hadloor Soomaaliyeed kaasi oo lagu xasuusto gabayo, sheekooyin iyo dhacdooyin xiiso leh oo uu ka tegay. sidoo kale markii uu geeriyooday walaalkiis Ugaas Xuseen waxaa loo caleemo saaray Ugaas Raage. dhinaca kale Ugaas Raage waxa uu noolaa waqtiyadii uu Garaad Faarax Wiilwaal ka tali jiray deegaanada Ogaadeniya. sheekooyinka in badan waxaa lagu sheegay xifaaltan iyo tartan dhex maray Ugaas Raage iyo Wiilwaal kuwaasi oo ku dagaalamay gabadh qurux badnayd. Raage Ugaas gabayo badan ayuu ka tiriyay jacaylka gabadhaasi waxaana la sheegay inuu markii dambe dilay Garaad Wiilwaal sida uu ku yimi gabayga Alleyl Dubay. Raage Ugaas ayay gabadhi u doonanayd gabadhaas oo qurux Ilaahay ku manaystay. Raage gabadhu way madax qaaday oo aad buu u jeclaa. waxaase gabadhii lagu meheriyay Faarax Wiilwaal. markii uu warkii Raage gaadhay ayuu jiif iyo joogba diiday Raage kadibna tiriyay gabaygan la magac baxay Alleyl Dumay. waxa uu leeyahay Raage Alleyl Dumay albaabadoo la xidhay uunku wada seexday onkod yeedhay ugaama roob alif banaadiiq ah ihdayda bixi baa libaax iman la moodaaye raggase adhaxda iyo ooftu waa udubdhexaadkii iyo labadii wax laga eegi jiray waan ka awdnahaye halkan ka leeyahay ilaah keliya uunbaa og. aboodigu ma lalo garab hadduu iinku leeyahay orod uma hollado oglihii adhaxda beelaaya ma aarsado il iyo oof nimay iimi kaga taale aroos uma galbado nimuu wadnaha arami jiifaaye geeluba markuu oomo wuu olol badnaadaaye sidii inan yar oo hooyadeed aakhiro u hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meelilina seexshay. hadba waxaan la urugoonayaa uurkutaallada ninka ila biyale soo arko ooman baanahaye ninka ooridiisii nin kale loo igdhaanahaye ninabkii ogaadeen yahoo aarsan baanahaye afdhabaandhow aayar ninkaa aamusaanahaye. waxaa kaloo la sheegaa in Raage Ugaas iyo Garaad Wiilwaal ay dhex martay gabayo yaryar oo gaagaaban oo isu tuurtuur ah. gabayadaasi oo ka dhashay gabadha ay isku haysteen labada nin. Raage marka uu gabayga mariyay ayuu odaygii gabadha dhalay siin iyo meher isugu daray da'dii ka yarayd gabadha oo aan iyadu waxba ka liidanta weyn. si kastaba ha ahaatee Raage iyo Faarax waxay inanlayaal u noqdeen reerkii ay gabdhaha ka qabeen. maalin maalmaha ka mid ah ayuu Faarax Wiilwaal haweenaydiisii u sheegay inay si fiican u soo labisato soona kaxayso walaasheeda ka yar oo ah xaaska Raage. dabadeed ku soo agmaraan duleedka reerka. Faarax inta uu u yimid Raage ayuu ku yidhi warinakee aan duleedka shax ku soo cayaareen. kadibna waa la israacay ayagoo shaxaya ayaa dumarkii soo kormareen. dabadeed waxaa la isweydaarsaday tixahan halgaada ah. sidoo kale waxaa la sheegaa inaanay dumarku laba ahayn balse uu Garaad Faarax Wiilwaal keliya xaaskiisa oo ah midda ay labada ninba wada jeclaayeen uu ku yidhi na soo hormar. Wiilwaal waxa uu yidhi geenyada nin lihi qoofashee qolalka meeraysa qiyaasliin ninkii ugu tagow qooma maaxigiye kanaan degay. garo oo markaa waa la shaxayaa. Raage isna wuxuu yidhi geenyada nin lihi qoofashee qolalka meeraysa mana la qoonsanayaa hadday fuulma noo qabato kanaan degay.
wiilwaal baa isna yidhi, qumbe subaga oo meel qotoma oo nin lihi quuto qooraansigiisa kuugu daran quudan la cunaynin. Kanaan degay. Raagani ku soo noqoy, qumbe malabo oo meel qotoma oo rag wada quuto mana loogu qoonsanayaa hadday gaaja noo qabato. Kanaan degay. wiilwaal, nin adoogi dhowr qaalin dhalay qolana kaa fiican ma lagu qoonsanayaa hadduu gabadhi kaa qaaday. Raagana ku soo noqoy oo wuxuu yidhi, nin adoogi dhowr qaalin dhalay qolana kaa liidan ma la qoonsanayaa hadduu rubadda kaa qaado. Kolkaasaa waxaa la sheegaa Raage intuu ablaydii iska gooyey ayuu Faarax laba u kala gooyey, dabadeed gabadhu jeclaa ee xilaha u ahayd Faarax ayuu faraskiisii ku riday lana tegay oo reerkoodii la aaday. bal aan eegno gabayada kale ee tuurtuurka ah ee Raage laga hayo, maadaama aan gabayadiisii dhammaan iyagoo dhammaystiran la wada haynin. mar uu tolkii guubaabinayay khalaafka iyo qabyaaladda inay iska dhowraanna u sheegayay, waxa uu tiriyay gabay aan filayo inuu aad u dheeraa, balse keliya laga hayo ama aanu ka hayno meerisyadan. walee ama rafiiqdo sidii raxan walaalowda ama idin rash tidhi, bowdadaan laga rukuucaynin ruficii tolkala gala haddii la iska wada raadsho, haddaydan sidii yacay ruqsamin dhagaxa ii raabi. gabay kale oo uu abwaanku tiriyay xilli ay dagaal la galeen Jidwaa Qabsame ayaa waxaa la laayay rag badan oo uu ku dhaadan jiray. waxaa ka mid ahaa raggaas Geeltoosiye, Askar Cumar iyo rag kale. abwaanku wuxuu aad uga xumaaday dumarkii dumaasha sugayay inay heleen niman aan ku habboonayn oo aan u dhigmin raggii la laayay. waxa uu yidhi Raagowgaas Allah u naxariistee, haddaan ooyo naagaan arko waxuma aaboobin, haddaan aamusnaadana qalbigu iyaas kumi maayo, haddaan igaryamaalana anfaco ku ilsamaan maayo, haddaan ila xir seexdana hurdada alalad bay dhaafin, haddaan eegi dheer fuulo oon ololo oon reemo oon uubateeyana raggii iigu iman maayo. waxa uu jeedaa raggii la laayay ee aakhiro aaday, haddaan u qayshadana iigu soo noqon maayaan. abjacdiday ululi aan jid gelin aga barshaydiida, hadduu timaha oogtaa ka dhigo agdari boodhboodh leh, ardaal nacasa naaguhuba way iska ogolaadaane inaa adhi jireed iyo midaan habarti awrgoynin aakhiro raggii tegay, haddaan eebbe ka aqoodo haddii uun la dayn nebiyadii lama ileeyeene sow waxaan ilaawaba mid xuni ima ogeysiiyo. mar kale ayaa abaskuul Jidwaa Qabsame waxa ay marti qaadeen Raagowgaas. Raage oo horeyba qoyska dakana uga qabay ayaa ka shakiyay martiqaadka. wuu soo yeelay oo wuu aaday. maalin kadibna walaalkii Ugaas Xuseen ayaa isna la marti qaaday. Raagase wuu uga digay inuu aado meeshaas. Ugaas Xuseen hadalkii Raage dhag uma dhigina wuu aaday martiqaadka abaskuul inay qudha ka jartay rabtay ugaaska. gargaar allase wuxuu soo baxay isagoon dhagna kaga jirin oo faraskii gees walba waran laga taagay oo luudinaya. kolkaasaa Raagowgaas gabaygan oo caqli celin ahaa ka tiriyay. wuxuu yidhi Raage, wiil gaarin geeskiyo dhagtiyo giirka qaban maayo, shabeel oon gabraartiis ogahay gacan toglayn maayo, goljeex iyo nin waran ii wato ani igaadaya, gag intaan idhaahdo hurdada uga garaar daayo, garbahayga hilibka ku yaal gooso odhan maayo, god abeeso gacantayda midig gelin aqoon maayo, garaadkaygu meelaha barhkood ani igayn maayo. iyadoo aynaan ka gayoonayn gabayada Raagowgaas warfaa ayaa waxaynu ku soo gunaanadaynaa gabaygan baroordiiqda ah. gabaygan abwaanku waxa uu ka tiriyay geeridii walaalkiis Ugaas Xuseen, isaga oo qorraxay jooga oo reer uu gabadh ka qabay inan la yaal u ah ayuu cuntadii diiday oo mar qura goosan kari waayay. gabadhii uu qabay oo Xadiye Nuuriyey la odhan jiray ayaa aabbaheed u tagtay oo ku tiri ninkii waxna iima sheego dheefna diid. dadkii hore wax garasho iyo fahmo badan ayay ahaayeen. odaygii gabadha dhalay ayaa gartay in meesha wax ku jiraan oo uu Raage wax tabanayo. gabadhiibuu dabadeed wuxuu ku yidhi, haddaynine kolba toosiyo isagaa hadli doonee wuxuu ku hadlo ii soo sheeg. gabadhiibaa aqalkeedii ku soo noqotay oo taladii aabbaheed yeeshay. markii dambe ayuu soo fadhiistay oo uu yidhi gabaygan oo murti gooni ah sita. suldhadaan fadhiyey Faaraxow layga soo saariyo salka inuusan dhigin, baa adduun laga sugayaaye sidii surayo neef qali ayaan suuqa taagnahay.
haddaan geed siyaab looga dhigin saar ma joogsada ee suhro ma arko labadii indhood nimay sursuurmeene shirsa sabane guul saa dambaa amase saakuuna suxulkaa ka soo leef markuu badowgu soo yaamo raggii kala sabaalayn jiray iyo sayn cadaamadha iyo salaad loo dan leeyahay ma ogi si aan idhaahdaaye amba saatan inay duniye noqon saabka kuma haynee goblan sama adduun waa waxaan kor u siyaadayn sidka geelu waa 12 saban dhammaantiisa sacna caanihii waa intuu sabadku buuxaaye adhina waa sadqee oo lagama helo seeda joomaha ee sanduuqaan miftaaxii lahayn waa surduba jaana birta haddii uu saafuhu ka lumo saawo bay noqone gobonnimo raggii sare ka tegay waa siraa damaye sooraale aar baa dhufsaday sararihii nuure sarartoosiya aadan cunay siqigii dheeraaye soonkii kal hore yuusuf baan siigadii dhigaye sanyaraan hagoogtiisa siday 2 sabaanoode raggaasi waa rag dhammaan lagu laayay dagaalka balse waa raggu dhimashadooda xitaa sahal u arko marka laga reebo walaalkii xuseen oo ahaa ugaaska beesha oo uu qaadan waaye marnaba dhimashadiisa waa kan leh sahal bay ahaayeen raggan saa u leeyahaye maanta salaankii u jabay samatar fool jeexe sarsarigu bannaanaa mus iyo sudigu dayrayde nin sirsiraad ka damay wuxuu shitaa sooma xaabadiyo soo jeedahaan ku hurdi jiray sulubkii geeriyooye wax badan baa sidii sii qawobi saana loo wadayo boqorkan saf iyo fara lahayn waa sakaar adhiya dhaaxaan salaamiye ahayn saafi nabadeeda goblan sama adduun waa waxaan kor u siyaadayn sabca saynabkii adari iyo timirtii reer saaxil burka iyo sarreenkaad ku dubi saatan dabadeeda sudna igama gelin dhuunigaad soo day leedahaye sangihii xiniinyaha la jaray yaan sidii ahaye si kac oo igala baydh soo noqnoqodkaaga iga seexo surin layhayiyo yaan seedi kaa go'ine ha isiinin soortii shiflaa lagu sadaadaaye ama saadanimadii haween saacad bay toosi halkaa kuma ekayn doono gabayada raaga ugaas warfaa iyo xusuusihiisa balse doorkan aan halkaa ku joojino daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe garee channelka si aad ula socoto warbixinaha xiisaha leh ee aanu kuu soo gudbin doono